marxim waxaan rabaa maanta inaan ila wadaago arrin aad iyo aad su'aasheeda inta badan igu badato aad lii weydiiyo taasoo ah masturbation ay dadku u yaqaanaan siigada rag iyo dumar labadoodu waa loo siman yahay laakiin waa la kala dhaawac sii badan yahay weliba ragga aad iyo aad u dhaawac badan dumarka dhaawacooda aad u yar yahay laakiin ragga ka dhaawac badan ragga haddaan ku hormaro siigada ragga dhaawacyada u geysa waxaa ka mid ah mentally oo qofkii sick uu noqdo oo maxaa la yiraahdaa maskaxiyan oo qofkii ayada maahan wax kala raadin social distance qofkii oon dumarba u baahnayn oo dumarkiiba ka baqa oo asaga raba in uu maxaa la yiraahdaa uu maxaa la isbleasure gareeyo shahwadiisa oo aad u jilcada oo sidii hore aan u adkeen waxay noqonaysaa soft ugu dambeeyna biyahaas camal ay noqonaysaa dhinacayga yaalo kale xubinta taranka oo aad iyo aad baati noqota jilicda oo awoodba aan lahayn markii uu wax ka imaanayaanna awooddii hore ee soo tuuraysa midna aan lahayn oo si tubo biyo go'day camal u daadata dhabar xanuun dhabarka lower back oo aad iyo aad u xanuuna wuxuu kale koosgaraysaa maxaa la yidhaahdaa ii sheeg in uu qofkii bahashaas mahana uusan wax kale u baahanin midda kale oo rag iyo dumar ay ka saman yihiinba waa indhabeelka qofka aragtidiisa aad u yaraata muhiim waaye inaad iska dhaaftaan bahashan maskaxiyana damage xogla kugu soo gaaraya heer waxaa gaaraysaa bahalka markaa ku dhex jirtid oo shaqada guriga aawadid in aadba fiidiyoyadii soo xasuusatid xusuusyo badan ku gelinaysaa fiidiyooga marba markuu sii bato heer waxaa gaaraysaa dumarba aad u baahnayn oo fiidiyoogaas mar walba oo maskaxdaada ku soo dhacayo tan dumarka haddaan ka hadlo dumarka dhibaato badan ay laftirkooda maraan ugu horeyn waxay ku waayaan virginitygoodii number 2 emotionally dead ay noqdaan emotionally way u dhintaan number 3 dhabar xanuunku waa ka sameyn yihiin raggay kala sameyn yihiin number 4 dumarka markii hooyo noqoto pregnancy xilliga dhalmada aad iyo aad ugu dhibaatoodaan dumarka inta badan ugu dhibaatooda dhalmada waa kuwa inta badan masturbation ka badsada ama sidaa u taqaanaan ereyga Soomaalida u taqaano siigada caafimaad ma laha weight gain badan ayay leedahay rag iyo dumarna waa loo siman yahay raggana calool ay u yeeshaa dumarkana weight badan ayay saartaa wax wanaagsan ma aha caafimaadkiina ka fikira sports ka sameeya hor u socda